بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan ka hadlayaa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn oo haysta dadka Soomaaliyeed ee ku nool Geeska Afrika. dhibaatooyinka haysta dadka Soomaalida ah aad bay u fara badan yihiin, laakiin dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaa ka mid ah dhibaatada abaarta soo noqnoqota. haddaba waa maxay abaar? abaar waxaa la yidhaahdaa marka ay baaqdaan roobabkii di'i lahaa xilliyadii ay roobabku di'i jireen. xilliyadaas oo kala ah xilliga guga iyo xilliga dayrta. haddaba waa maxay sababta abaartu ay uga dhacdo deegaamada ay degan yihiin dadka Soomaaliyeed ee Geeska Afrika? sababtu waxaa weeyaan laba nooc. labadaas nooc oo kala ah sabab ay dadku saameyn ku leeyihiin iyo sabab dabiici ah oo ay keento dabiicaddu, ama sabab rabbaani ah oo dadku aanay saameyn badan ku lahayn. sababaha abaarta ee dadku ay ka qayb qaataan waxaa loo yaqaano human activity. waxaa ka mid ah falashada dhulka oo aad u fara badan, dhulka oo loo isticmaalo si ka baxsan awoodda ecologiga ah ee dhulku uu leeyahay, iyadoo xoolo badan lagu raaco meel go'an, iyo iyada oo aad looga fasho beeraha. taasina markaas ay keenayso dhulku inuu lumiyo awooddiisii wax soo saar, oo markaasna dabaqa kore ee dhulka ee nafaqada leh ay dhulka ka dhammaato, markaasna dhulkii uu noqdo dhul xaaluf ah. sababta kaleetana waxaa weeyaan sababta loo yaqaano deforestation, ama dhulka oo laga nabaad guuriyo dhirta. sababtan dambe ee xagga nabaad guurinta waa tan ugu weyn ee maanta haysata dhulka ay degan yihiin dadka Soomaalida ah. sababta oo ah dhulka Soomaalida waa dhul saxaara xigeen ah ama saxaara u eka ah. waa dhul kulul, roobka iyo biyuhuna ay ku yar yihiin, marka waa dhul xasaasi ah oo khatar ugu jira in uu noqdo saxaare. dhirta oo la jaraa dhul markii horeba kululaa oo biyo yaraa waxa ay keenaysaa in dhulka dhirtu ay ka dhammaato. marka ay dhirtu ka dhammaatana dhulku waxa uu noqonayaa dhul loo xiiray ama ban ah. taasina waxay keenaysaa dhulkaasi inay si fudud ugu dhufan karaan dabaylaha iyo duufaanada iyo daadadka, oo markaasna ay qaadi karayaan qolofta kore ee dhulka. markaas dhulkuna uu si fudud u noqon karayo dhul lama degaan ah. taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha keena abaarta. waxaa kaloo ka mid ah waxaa loo yaqaano carraguurka ama erosion. carraguurkana waxaa keena laba nooc oo ah dabaylaha dhulka ku dhufta kadib markii dhulkii la xaalufiyey, ama se daada xoog leh oo dhulka ku dhufta oo markaasi dhulka ka qaada qolofka kore ee nafaqada leh
ee dhulka xajiya markaasna dhulka uu noqdo mid rifmaya oo googo'aya oo u nugul dabaylaha iyo daadadka intaba. dadka Soomaaliyeed waxay u haystaan oo keli ah in abaarta ay keento roobka oo daaha, laakiin marka dhulka la xaalufiyo oo dhulka lagu sameeyo waxyaabihii aan soo sheegnay, markaas dhulku wuxuu luminayaa qaabkii dabiiciga ahaa ee dhulku uu samaysnaa. markaa roob kasta oo ku da'a biyaha ma ceshanayo, dhir iyo cawsna kama soo baxayaan. taas ayaa keenaysa in dadka iyo xooluhu ay saameyn weyn ku leeyihiin dhulka. mar haddii wixii soo gu'i lahaa ee dadku ay quudan lahaayeen ay yaraadaanna, waxaa bilaabanaya dadku in ay macaluulaan. natiijooyinka kale ee abaarta waxaa ka mid ah dhulka oo isu roga dhul xasaasi ah oo boodh iyo dabaylo ay ka kacayaan, kuwaas oo keena carraguur erosion. natiijada kale waxaa ka mid ah duufaanada iyo dabaylaha ku dhufanaya dhulka kadib markii dhulkii geedihii ay ka dhammaadeen oo aysan jirin dhir iyo caws celinaya dabaylaha. markaasi dabayluhu si fudud ayay ugu dhufan karayaan dhulka. taasina waxa ay keenaysaa waxa loo yaqaano famine ama gaajo, taas oo ay keenayso biyo la'aanta, cunto la'aanta, caws la'aanta. waxaa marka hore dhimanaya xoolaha, kadibna waxaa ku xigsanaya dadku inay dhintaan, sababta aan nolosha dadka badankoodu, gaar ahaan dadka reer miyiga ah iyo dadka reer tuulooyinka ah, noloshoodu waxay si weyn ugu xidhan tahay xoolaha dadku ay dhaqanayaan iyo beeraha ay abuuranayaan. sababahaasna waxaa kale oo ka mid ah waxa loo yaqaano habitat damage, oo ah dhaawac ama dhibaato gaadha dhulkii dadku ay ku noolaayeen, dhulkii dadku ay degganaayeen, dhulkii dadku ay beeranayeen. waxaa kale oo soo raacaya dadka oo ay soo food saarto macaluul iyo gaajo. dhibaatooyinkaas waxaa kale oo ka mid ah nafaqa darro ku timaada carruurta iyo dadka tabarta daran, marka dambana u gudubta dadka oo dhan, iyo cudurro ay keento nafaqa darradaasi. waxaa kale oo dhibaatooyinkaasi ka mid ah dhibaato dadka Soomaaliyeed ay indhaha ku hayaan maalin kasta, waxa loo yaqaano mass migration, taasoo ah inay dadku dhulkooda ka guuraan oo ay ka haajiraan, maadaama dadku ay aamineen in waddankii ay u dhasheen aanay nolol ka soo saari karaynin. dadka waddanka ku nool waxaa ku adkaanaysa in ay shaqooyin helaan, in ay cunto ku filan helaan, in ay waxbarasho helaan, in ay deganaansho iyo nabad helaan. taasina waxa ay keenaysaa dadku inay waddankooda nacaan oo ay desperate noqdaan. taasina ay keento in dadka wixii awoodi karaya ee lacag iyo dhaqaale iyo caafimaad iyo xoog leh inay waddanka ka guuraan. waxaa halkan aad ku aragtaan sawir muujinaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku baaba'aya dhulka saxaaraha ah ee waddanka Liibiya iyo waddanka Yaman iyo waddamo kale oo dadku ay sii maraan marka ay Yurub u tahriibayaan. waxaa kale oo dhibaatooyinkaasi ka mid ah waxa loo yaqaano social unrest, oo ah qalalaaso xagga bulshada ah, deganaansho la'aan, isku dhacyo. sababta oo ah marka abaaruhu ay dhacaan waxaa yaraada khayraadka, biyaha iyo baadka iyo deegaanka iyo beeraha ayaa yaraada. markaasay dadku waxay ku soo ururayaan meelo kooban. marka dadku iyaga oo markii horeba la dhibaataysnaa khilaafaad iyo isku dhacyo iyo dagaallo sokeeye, marka ay abaara dhacaan waxay isugu soo ururaan meelaha markaasi noloshu ay ku hadhay. taasina waxa ay keentaa dadku inay isku sii dhacaan oo ay islaayaan, oo dadku ay isku qabsadaan meelaha markaasi nolol ay ka jirto, sida webiyada agahooda, dooxooyinka, dekedaha, meelaha la isleeyahay waxoogaa nolol ah baa laga helayaa, bay dadku ku soo ururayaan halkaas oo ay isku laynayaan. taasina akhritaanka waxa ay keentaa dagaallo dadka dhex mara. haddaba dadka Soomaaliyeed waa in ay ka fikiraan waxa loo yaqaano food security ama damaanadda cuntada. dadku waa inay helaan cunto ku filan. haddii cunto la waayo, markaasi waxaa meesha ka baxaya deganaanshihii
wada noolaanshihii sharaftii iyo karaamadii bini aadanka ayaa meesha ka baxaysa waxaana dhacaysa dadku inay isqabqabsadaan waxa loo yaqaan conflict ama iska horimaadyo hubaysan baa dadka dhex maraya marka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dhammaan meelaha ay ka jiraan maamulada waxa loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan waxa loo yaqaan food security ama damaanad qaadka cuntada ee dadka taas oo macnaheedu yahay in dadku ay helaan cunto ay ku noolaan karayaan si fududna ay dadku u heli karayaan isla markaasna aan ku xidhnayn haddii xilli roob di'i waayo iyo haddii kale waa in lala yimaadaa qorshe cad oo dadku ay ku badbaadi karayaan sababta oo abaar dunida dhan way ka dhacdaa laakiin marka wadan uu u diyaar garoobo inuu abaarta ka tashado oo ka sii diyaar garoobo markaasi waxaa yaraanaya dhibaatada abaarta laakiin haddii dadku aanay diyaar garooba lahayn oo iyadoo shalay abaar ku dhacday oo xoolihii ka dhamaadeen oo waxoogaa yaraa haddana abaar labaad ay ku dhacdo oo waxoogaa yaraa haddana muxuu ahaay dhowr sano kadib la yooyay haddana abaar kale ay ku dhacdo yani qofku waxaa la rabaa inuu ka diyaar garoobo waxaa la rabaa dadku inay bartaan sida loo abuuro calafka xoolaha meelaha yar ee la abuuri karayo dadku inay abuurtaan dadku inay isku tashadaan bakaaro cuntada lagu kaydsado dadku inay samaystaan waa in xoolaha loo diyaariyo haddii sanadkan uu guga di'i waayo ama dayrtu di'i weydo biyihii xooluhu ay cabbi lahaayeen waa in la qodaa ceelal fara badan iyo meelo biyaha lagu kaydiyo waana in calafka xoolaha la kaydiyo hadduu roob da'o ahla wasahlan calafka waa la qaadaa beerta lagu nafaqeeyaa inta la jarjaro haddii kalena waaba la daayaa sababtoo calafka waxaa laga yaabaa dhowr sano inuu meel ku yaallo laakiin qaabka hadda ay Soomaalidu ku socoto oo wax jiramood dad uun iska nool dad uun sugahaya maalin walba roobkaas muxuu ahaay cirka ka imanaya oo hadduu saddexda bilood soo socoto uu roobkaas di'i waayo dadka iyo xoolaha waxay ugu jiraan khatar inay dhamaadaan maamul goboleedyada Soomaalida ka jira waxaad moodaa inay ku mashquulsan yihiin waxyaabo kale siyaasad iyo khilaafaad dhexdooda iyo isriix iyo waxaas ku mashquulsan yihiin laakiin maxaa waxaas lagu gaaraya haddii wadankii dadkii wadanka ku noolaa ay cunto waayaan markaas madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe ma jiri karayaan waa lagu kacayaa ama waxa dhici karaysa in ay ka qarxaan dagaalo iyo mashaakilaad aanay markaas xalin karin haddaba maamul goboleedyada Soomaalida iyo dawladda dhexe ee Soomaalida iyo dhammaan dhulka ay degaan dadka Soomaaliyeed dadka mas'uuliyiinta waa inay ka fikiraan oo ay ka shaqeeyaan sidii dadka ay mas'uulka ka yihiin ay u noolaan lahaayeen adduunyada waxa laga shaqeeyaa wax la yiraahdo badbaada laga shaqeeyaa dadku inay badbaadaan waa mas'uuliyad saaran dadka mas'uuliyiinta oo waxa loo yaqaan agricultural extension dadka la baro fidinta beeraha abuurista calafka dadka in la baro dalagyada ku bixi karaya dhulka kulaalaha ee Soomaalidu ay degto haddaba waxa loo yaqaan food security muxuu yahay waxa loo yaqaan food security ama damaanad qaadka cuntada ee dadka waxay ka kooban tahay afar qaybood kuwaas oo kala food availability dadka waa inay heli karayaan cuntadaasna waa inay taalaa meel u dhow ama waa inay iibsan karayaan waxa loo yaqaan food availability waxaana loo baahan yahay si dadku ay cunto u helaan in dadka wadankooda ay cuntadu ka soo baxdo dad cunaya cunto dibad laga keenay waxa ma noolaan karayaan waxaana meesha ka baxaya waxa loo yaqaan food security waa in dadku ay bartaan in ay cunaan oo ay abuurtaan oo ay ku noolaadaan cuntada ay wadankooda ka soo saarayaan waxa kaloo kamid ah waxa loo yaqaan food access oo dadku inay cuntada heli karayaan ayna si fudud u iibsan karayaan ayna haystaan dhaqaalihii ay ku iibsan lahaayeen waxa kaloo kamid ah waxa loo yaqaan food utilization oo dadku inay cuntada isticmaali karayaan cuntadaas oo cunto nafaqo leh oo jirkooda siinaysa nafaqadii iyo calorieski uu jirku u baahnaa haddaba marka meel ay abaar ka dhacdo ama abaaraha soo noqnoqda waxa ay keentaa inay aad u yaraato wax soo saarka dalka oo dadku ay awoodi kari waayaan inay beertaan cuntooyinkii ay cuni lahaayeen iyo dalagyadii u soo go'i lahaa ama
xoolihii ay raacanayeen ay dhibaato ku timaado. waxaan ka hadlaynaa xaaladda Soomaalida marka uu wax soo saarka badeecadaha iyo adeegga waddanka ay aad hoos ugu dhacdo oo abaaro iyo dhibaatooyin waddanka ay ku dhuftaan, waxaa markaasi hoos u dhacay waxa loo yaqaano trade balance oo ah miisaanka ganacsiga. haddaba siyaabaha abaarta looga hortago way fara badan yihiin, laakiin waxaa u muhiimsan in la deegaameeyo dadka reer guuraaga ah oo dadku ay noqdaan dad xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira, kuwaas oo diyaarsada cuntadii ay cuni lahaayeen iyo calafkii xoolahoodu ay cuni lahaayeen. waxaa kale oo ka mid ah in la joojiyo dhirta la jarayo iyo dhuxusha la gubayo ee dhirta laga samaynayo. waa in aad iyo aad loo yareeyaa jarista dhirta si markaasi dhulku uu u lahaado dabiicaddii ecologiga ahayd ee uu dhulku lahaa. sidoo kale waxaa muhiim ah in la sameeyo waxa loo yaqaano reservation oo ah dhul la qayday oo laga ilaaliyo isticmaalka dadka iyo xoolaha, si markaasi dhulka loo ilaaliyo dabiicaddiisa. marka dhulka la qaydayo waxaa laga ilaalinayaa dadka iyo xoolaha muddo 10 sano ah, kadibna dhulkii baa la isticmaalayaa, dhul kaleetana waa la qaydayaa. marka nidaamkaasi reservationka ama qaydka dhulka waa nidaam aad iyo aad muhiim u ah oo adduunka oo dhan laga isticmaalo.